dilaagii adduunkan gelgelay dhiigdaadiyihii kulliyadda caafimaadka ee caanka ka noqday magaalada Sanca kaasoo qirtay inuu ka ganacsan jiray xubnaha bini'aadamka labada qaaradood ee Afrika iyo Aasiya sida wadamada Chad, Central African Republic, Kuwait iyo Suudaan in ka badan 100 qofood. sidoo kale sanadii 1995 ilaa 99 wuxuu ku qalay wadanka Yemen in ka badan 56 qofood 16 kamid ahna ay ahaayeen gabdho dhaqaatiir heer caalami ah. balse daawada waxaan idin soo bandhigaynaa jiriimadii adduunkan ugu foosho xumeyd uguna khiyaanada badneyd horeyna aanay taariikhda u diiwaan gelin mid la mid ah. waa qisadii dhiiga cabkii weynaa ee reer Suudaan Dr. Maxamed Aadan. sheekadan waxaa qoray saaxiibkay qoraa Maxamed Cabdirasaaq, balse marka hore haddii aadan ku soo biirin channelka fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelin uusan ku dhaafin. mahadsanid. waa qisadii dhiiga cabkii Maxamed Aadan Cumar Isxaaq. waa dhakhtar Suudaani ah, da'diisuna ahayd 52 jir. waa nin aad u madow, indho waaweyn, timo adag, aragtidiisuna ay aad ku cabsi gelinayso. ninkan isagoo jira 7 sano ayaa hooyadii hortiisa lagu kufsaday. kadib aabihii ayaa gowracay ninkii, hilibkiisana jarjaray. wuxuuna ku aasay xerada ama moorada arigooda dhexdeeda. ninkan yaraantiisii wuxuu ku soo koray nolol aad u rafaad badan, kaasoo shaqada dhakhtarnimada ka soo bilaabay dalkiisa Suudaan. wuxuu ka shaqayn jiray jaamacadda Darmaan Al Ahliya ee ku taal caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum si uu noloshiisa u maareeyo. inta aanu jaamacadda ka noqon dhakhtar, wuxuu u qaabilsanaa hosbitaalka jaamacadda inuu meydka dhaqo, mushaarna ku qaato, kaasoo shaqada ka dhaxlay aabihii ilaa uu noqday dhakhtar weyn kuna takhasusay cilmiga anatomiga ama tashriixa, taasoo micnaheedu yahay cilmiga qaliimada guud. kadib wuxuu sheer la noqday kambaniyo waaweyn oo ka ganacsada xubnaha bini'aadamka, iyada oo uu ka iibin jiray wixii howlo uu halkaasi ka fuliyo. intaa kadib wuxuu u soo wareegay dalka Kuwait, kaasoo uu ka shaqaynayay in muddo ah. wuxuu aad uga faa'iidaystay dagaalkii Kuwait iyo Ciraaq. wuxuu ku qalay taariikhdaas dagaaladu socdeen dad aad u fara badan, isagoo halkaasi kasii watay iibinta xubnaha bini'aadamka. kadib wuxuu u soo wareegay dalka Chad. sidii horeba wuxuu sii watay howlgalnimadiisii dhiigacabnimada ahayd, kaasoo nolosha dhaafiyey dad aan tiradooda yarayn. wuxuu kaloo ka soo shaqeeyay dalka Afrikada Dhexe, Central African Republic, kaasoo sii laba jibaaray falalkii wuxuushnimada lahaa ilaa uu ka soo gaaray dalka Yemen sanadii 1995. heshiiskii dalka Yemen uu ku yimid ee dhakhtarnimada ahaa waxa uu la socday dhiigacabnimadii uu ku caanbaxay ee qaliimada bini'aadamka. wuxuu dalka Yemen ku qalay 56 qof 16 qof oo dadka kamid ah waxay ahaayeen gabdho jaamacadda dhigta. balse waxa uu sahlay qaliinka gabdhahaas. dadka reer Yemen waxay dhaqan u lahaayeen haddii gabar la waayo inaan la raadin, sababtoo ah gabdhaha waxaa saarnaa cadaadis aan loo ogolayn suuqyada inay aadaan, inay asxaabtooda la soo baashaali karin, iyo inaanay nafis badan heli karin. sidaa darteed waxaa dhici jiray in Sacuudiyaanka ama reer Cumaan ama Yemanta qaarkood ay la baxsadaan gabdhahooda, sababtoo ah haddii la waayo qoyska gabadha dhalay waxay ilaashan jireen sumcaddooda iyo sharafka gabdhaha kale. maxaa yeelay haddii la maqlo waxaan la guursanayn ama sharaf dhacaya gabdhaha kale. balse ninkan dhiigacabka ahi arrinkaa wuxuu ka helay jaanis uu ku qarin karo jariimooyinka uu geysanayo, ilaa laga soo gaaray dhacdadii uu ku fashilmay ee dhacday sanadii 1999. wuxuu qalay gabar Ciraaqiyad agoon ahayd, hooyadeedna keligeed haysatay. gabadhaas ayaa lagu magacaabi jiray Zaynab. Zaynab waxay ahayd ardayad da'yar, taasoo dhigata jaamacadda uu baraha ka yahay dilaaga weyn ee Maxamed Aadan. ugu dambeyn waxaa soo dhawaaday waqtigii la geli lahaa imtixaanka, iyadoo ka codsatay inuu siiyo madax plastig ah oo lagu barto qaliinka iyo qaybaha madaxa bini'aadamka uu ka kooban yahay. wuxuu ku ballamiyey Zaynab qaybta qaliinka xilliga ay xiisaduhu dhammaadeen. Zaynab ayaa u tagtay 12 duhurnimo. dhakhtarkii wuxuu gudagalay sidii uu howlgalkiisa ku fushan lahaa, kaasoo ku buufiyey kiimika loogu talagalay qofka inuu si degdeg ah koomo u galo. kadib wuxuu bilaabay Zaynab xubnaheeda muhiimka ah ee uu u baahnaa inuu kala baxo. kadib inta kale uu ku shubo kiimiko, taasoo dhammaan lafaha iyo jirka ka dhigaysa biyo. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka bilaabmay baaritaankii kiiskii lagu ogaan lahaa gacan ku dhiiglihii weynaa ee Dr. Maxamed Aadan qalay. Zaynab hooyadeed markay weyday gabadheeda waxay ka raadisay dhammaan meelihii ay ku tuhmaysay ilaa ay ka soo gaadhay xafiiska dhakhtarka Suudaaniga ah ee Dr. Maxamed Aadan. ugu dambeyn Zaynab hooyadeed ayaa u gudbisay dacwad saldhigga booliiska, taasoo ahayd inay gabadheeda la'dahay ugana shakisan tahay dhakhtarka Suudaaniga ah.
booliiska ayaa xiray Maxamed Aadan kadib laaluush oo bixiyey iyo cadeymo waaweyn oo aan lagu hayn awgeed. ugu dambeyn xabsiga waa laga sii daayay, balse muddo hal isbuuca kadib waxaa laga helay qaybtii qaliinka boorsadeedii gacanta, waxaana dib u soo xoogaystay tuhunkii laga qabay dhakhtarka dadqalka ah. laakiin waxaa balan looga qabtay maxkamadda inuu yimaado maadaama aan lagu fududaan karin mar labaad, waayo waa dhakhtar weyn dalkana heshiis iyo damaanad ku jooga. muddadii ballanka loo qabtay ayuu isku dayay inuu ka baxsado laamaha ammaanka, kaasoo boorsadiisa kusoo gurtay lacag aad u fara badan oo dollar ah, wuxuuna damcay inuu ka dhoofo madaarka weyn ee Sanca, balse waxaa helay xogtiisa CID-dii waddanka si degdeg ah ayaana loo qabtay. ugu dambeyn waxaa la keenay saldhiggii dhowr bari kadibna wuxuu qirtay dembiyadii la yaabka lahaa ee uu geystay, waxayna dowladda Suudaan isku dayday lacag kasta oo laga codsaday inay bixiso dhakhtarkana lagu soo wareejiyo, balse waxaa diiday dowladaha Yemen iyo Ciraaq oo waqtigaa aad u xoog badnaa. ugu dambeyn waxaa la saaray maxkamad taasoo ku heshay dhammaan cadeymihii iyo falkii argagaxnimada lahaa ee uu geystay, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah, waxaana lagu dilay magaalada Sanca ee dalka Yemen. balse daawaday qisadani waxaan ka baran karnaa 3 qodob. midda koowaad, carruurta yaryar in ishooda iyo dhegtooda laga ilaaliyo waxyaabaha cawaaqib xumada u keeni kara sida aflagaadada, ficilada xunxun ee waalidka ka hor samaynayaan iyo wax kasta oo nolosha bini'aadamka khatar ku ah, waayo dhakhtarkan weyn aynu qisadiisu soo sheegnay waxaa noloshiisa baabi'iyey kana dhigay dhiigyacab arxan laawo ah, kufsigii hooyadiis lagu horkufsaday iyo ninkii uu aabihiis ku horjarjaray ee xeradooda uu ku duugay. midda labaad waxay tahay dhakhaatiirta ajaanibta ee ka howlgala dalkeena hooyo in loo yeesho fiiro gaar ah. midda saddexaad waxay tahay dadka hosbitaalada xanuunka loo geeyo ee ku dhinta dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba in la hubiyo, maadaama lagu sameynayo qaliimo taasoo laga yaabo in lagaga saaro xubnahooda muhiimka ah. daawada adigana waad ku mahadsantahay la socoshadaada. wixii fikirkaaga nagula wadaag qaybta hoose.